kadib uu noo yimid boolis iyo ambulance baa yimid boolisku kadib waxayna weydiiyeen annaga ninkan sababtu isku dilay iyo sababtu guriga u soo galay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad video ka heshay like saar, subscribe na noo saar, waayo dhiirigelin ayay noo tahay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kusoo dhawaada muuqaal cusub. sanad ka hor waxaan tagay magaalo kale inaan ayaan halkaas ka baranay. run ahaantii inanku gurigayga ugu soo booqday sidii aan inankii gurigii u joognay ayaa waxaa dhacday albaabkii baa la qaraacay. albaabkii markii la qaraacay run ahaantii anigu waan baxay oo dhinacii albaabkaan u kacay. waxaan isku dayay inaan albaabka furo. kadib markaan albaabkii furay, albaabkii waxaan hortaagan nin baa hortaagan. run ahaantii ninkani aad iyo aad wuxuu ahaa nin daalan oo haddana qoslaya oo dhidid ka socdo, mise indhihiisuna aad iyo aad ay u cascas yihiin. run ahaantii anigoo markaas ayuu wuxuu i weydiiyey hallow buu igu yidhi, gacanta ayuu kadibna ii soo taagay. run ahaantii waqtiga anigu wax alla wax gacan oo aanu taagay ma laha. kadib waxa uu weydiiyey suuligiina ma isticmaali karaa ayuu igu yidhi. kadib anigoona u jawaabin gacanna aanu taagin ayaa inankii saaxiibkay ahaa baa ii yimiday. kadib markuu inankii saaxiibkay ahaa ayaa ku yidhi may suuligayga ma isticmaalaysid. kadib uu baxay, ninkii uu naga tegay. 10 daqiiqo kadib waxaan maqalnay biyo shagax loo dhago ku daadanaya. kadib waan yaabnay, waan iska sii fadhiyay. haddana 20 daqiiqo kadib waan fiiriyey oo meeshii waxba aan ka soo waayay. run ahaantii 30 daqiiqo kadib ayaa waxaa dhacday ayaa marka shanqadhii iyo biyihii daadanayay markay joogsan waayeen ayaa aniga saaxiibkay waxaan go'aansanay bal inaan meelaha fiirfiirino mise waxba waan weynay. kadib waxaan go'aansanay inaan u kacno xagga iyo suuliga meesha biyaha ay ka socdaan inaan eegno. suuligii hallow baan nidhi, waxba wayna la hadli waayeen. kadib waan qaraacnay, cidba wayna la hadli weyday. sidaan albaabkii hortaagnay qaraacinay qof markuu naga furi waayey, laakiinse ay biyo socdaan meeshii oo shanqadho ay socoto ayaa waxaan go'aansanay inaan albaabkii furno. run ahaantii albaabkii markii aan furnay waxaan aragnay wax yaab leh. suuligii oo wada dhiig ah iyo biyo daadanaya meeshii waxba waan arki weynay markaas, laakiin aad iyo aad baan u naxnay. markaasaan nidhi meesha waxbaa ku jira. kadib waxaan aragnay ninkii albaabka markii hore aan ka celinay oo meesha dhex jiifa oo wada dhiig ah oo isdilay. run ahaantii inankii kale waan isla hadalnay, waxaan isku nidhahnay miyaan wacnaa boolis baan wacnaa, maxaan samaynaa? run ahaantii anagu markaasi waan yaabanayn. ninkii waxaan aragnay isaga oo qoorta iska qowracay oo isdilay. run ahaantii anigu waan baxay oo saaxiibkii baan kaga tagay ninkii. anigu boolis baan wacay. kadib booliskii in yar kadib uu noo yimid boolis iyo ambulance baa yimid boolisku kadib waxayna weydiiyeen annaga ninkan sababtu isku dilay iyo sababtu guriga u soo galay cidda ka furtay. waqtigii laga bilaabo anigu qof dambe maan aamini jirin, cidna kama furi jirin. sheekaduna saas ayaa ku dhamaatay asxaabta.